بسم الله السلام عليكم وإن سلام أصحابتي meel walba joogtiin kusoo dhawaada channelkeena Bushra Cooking and Healthy. maanta waxaan rabaa inaan idinla share gareeyo qado yar oo aad u fudud oo healthy ah. waxyaalaha ka sameynayana aad easy u ah marka qadadan dadku way tilooska waaye ama healthy ah u cunaysaa. soo meeshaan waxaa ku haysanaa hadaa ka bilowno beans ku haystaa digirta cagaaran waaye qof kasta uu yaqaana I hope so. meeshaan waxaa ku haystaa basal cad ku haystaa hadda basal jeclaan oo iska dhaafi kartaa. meeshaan waxaa ku haystaa kabsar iyo meenti igu jiro. intan waxaa ku haystaa broccoli iyo cornflower iyo carrot ku haystaa. meeshaan waxaa ku haystaa fish ku haystaa salmon fish ku haystaa. alaabtan marka marabi dab badan inay gasho steam ahaan u sameynaya khudaartan. malaygana waa dubaya asagana wax inta mariya dubaya easy. marka meesha waxaa ku haystaa saliid oo hal qaad camal ah oo ku shubanaya dabka. hal qaad saliid waaye. haddana waxaan rabaa inaan ku shubto basasha ku shubanaya. basal guduud waa isticmaali kartaa. ani basal cada jeclahay inaan isticmaalo marka cuntada karnaayo. haddana waxaan rabaa inaan ku daro digirta. alaabta wax saaid dab badan la gelinayo ma ahan taas khudaar waaye. khudaartan haddii la karkariyo faa'iidada ka dhimanaysa asxaabta. marka waxaa rabaa qadadaas dhan inaan ku kariyo 15 minutes. soo marabi cunto oo saaid loo karinayo. minutes suugeena asxaabta kadibna waxyaalaha ku daraya rabaa inaan ku daro oo xarfiska ah insha Allah. maxaa u baahan tahay cusbo iyo waxaa ku darsanaya haruud iyo curry powder iyo paprika powder intaas ku daraya bas. iyo toonna waxay kula jirtay basasha insha Allah. marka waa isla soconeynaa qadadeena maanta sameysaneynaa. waa kana hadda asxaabta waxaa rabaa inaan ku daro xarfiska rabaa inaan ku daro. waxaa ka bilaabaya xawaaj curry wax yar ku daraya. qaadada yar afkeeda oo haruud ah. wax yar basbaas oo powder ah. red chili waaye. wax yar oo filfil. wax yar paprika powder ah. marka intaas ku daraya. هذه سبايسي جعشها ku darsan kartaa. marka ana intaas ku darsaday iyo cusbo yar ku daraya خلاص. marka intaas ku hurinaya like 10 minutes. hadana asxaabta waxaa rabaa intii cuntadana sii kareyso inaa fishka oo marinate ku sameeyo. marka waxaa ku darsanaya xawaaj curry iyo haruud iyo paprika powder iyo waxaa ku darsanaya wax yar oo basbaas ah. wax yar oo cusbo ah iyo wax yar liinta juuskeeda. intaas ku sameysanaya wax badan maraba inaan ku sameeyo. marka adii daarabti aan shiishid yogurt oo ku darsan kartaa saa jecesha u sameysan kartaa. marka ani hadda isaana u sameysanaya insha Allah. fishkaas u dhex gelinaya waa ku dhex labaya. marka waa ku dhaafaya 10-15 minutes ilaa 20 minutes ku dhaafaya kadib waa shiileena insha Allah. waa kana asxaabta haddana isku soo laabanay 20 daqiiqo kadib. haddana paankaar waa saliid yar inaan mariyo. maraba inaan saliid ku dhex shiilo just waxa sameynaya waa dubaya fishka.
grilla ku sameynayaa. Marka paanka saliid yar marsada saa u jeedin kadibna waxaa rabaa inaan saaro fiishka rabaa inaan saaro wax saliid dhan ma u rabi salmonka asaaba saliid isoo maahan marka saana rabaa grill ahaan inaan ugu sameeyo insha allah. marka saasaa ku dhaafeynaa ilaa uu kasoo brown noqonayo dhinaca kale kadibna dhinaca kale u gedineynaa insha allah. waakana asxaabta haddana waxaa rabaa inaan dhinaca kale u gediyo horta dhinacan wuu ka bislaaday. waakay marka dhinaca kale fideena haddana waakana marka asxaabta fiishkeena diyaar waaye labada dhinac wuu ka gudutay haddana waa ka baxsanaynaa insha allah. haddana waa soo diyaarsanaynaa cuntadeena. waa kaasaa marka asxaabta cuntadeeni qadadeeni caafimaadka lahayd saasaa kusoo diyaarsanay bakeeri biyo ah iyo cuntadii maasha allah oo dhammaystiran. liinta kusoo kormaystay waana ku kariyey maasha allah macaankeeda lagama sheekeyn karo. marka waa kaas asxaabta intaasaa idinla sheergareynaa aada u mahadsantihiin. insha allah next videogan wuxuu noqon doonaa casho ama wax kale insha allah. cashadeydana easy waaye marka waa arki doonaa asagana. marka asxaabta soo dhawaada insha allah like iyo subscribe iyo commentina hanaga ilaabina. commentiga dhiirigelin uu yahay aada u mahadsantihiin as always. جزاكم الله وإذنكم ما تعلنا يا. so إن شاء الله see you the next video. السلام عليكم.